musharaxa gudoomiyaha sportska degmada Burtinle Cabdullaahi Carabi Doon Yadoon oo ah musharaxa ugu cadcad xildoonka gudoomiyaha sportska degmada ayaa kulan ciyaareed saaxiibtinimo u qabtay kooxaha Safari iyo Dalcad ee degmada Burtinle waxaana kulanka ka qayb galay qaar kamid ah kooxaha kala duwan ee sportska degmada taageerayaasha kooxahan iyo sidoo kale dad khibrad u leh sportska degmada ku soo dhex jiray sportska qaar kamid ah kabtanada kooxaha ayaa musharaxa u mahadceliyay kulanka uu qabtay iyagoona sheegay inay xilkan u dooran doonaan Cabdullaahi Carabi Doon Yadoon oo ah shakhsi hogaamin kara sportska degmada sida ay sheegeen. bismillah runtii 17 sano ka hor ayaan halka ku ciyaarayay degmada Burtinle waxa la haray inay maanta halkaas iyadoo degmooyinka ugu waaweyn Puntland kamid ah in garoonka boorkaas ay noqoto waa qof aan geeyin in loo doorto gudoomiye sportis runtii waxaan kula talinayaa dhalinyarada soo kacday chance nasiibad haysataan jaalid qodbo joogoodan garab istaagaysa meel kasta galaysa inaad u doorataan Cabdullaahi Carabi waa dhal sportis gudoomiyaha sportska degmada Burtinle runtii waa ninka kaliya oo maanta geeya degmada Burtinle rag badan oo qurbaha jooga oo degmada Burtinle u dhashay waxay maanta insha Allah diyaar u yihiin inay garab istaagaan Cabdullaahi Carabi waan codsanayaa inay taageeraan runtii halka waxa iiga muuqda Maxamed Axmed Nuur Xuur waa legendi waa istiraakaygi degmada Burtinle siraada degmada Burtinle dawladda hoose runtii waxa kale halka iiga muuqda hadana ka hadlaya waa Daakir Nageeye khadkii dhexe ee degmada Burtinle runtii waa Cabdullaahi Carabi legend hore wataa marka waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Burtinle especially kabtanada inay taageeraan codkooda aysan fiirin qabiil aysan fiirin mataqaana waa inay fiiriyaan yaa la dhashay sportska ninkan waa Cabdifataax Cali Salaad runtii ninkii garanaya garan kara 1997 anagu dhalinyaradii yararka ay daawan jiraan kamid ahay waa legendi runtii midfield buu ahaa waa idin jeedaan waa u jeedaan waxa ka muuqda meeshan videogan rag legend ah waana beginning waa wixii ugu horeeyay hadda uu qabtay weeye Cabdullaahi marka waxaan codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada reer Burtinle ee qurbo joogta inay garab siiyaan dhalinyarada kale oo ku nool degmada Burtinle Cabdullaahi Carabi waa nin wax badan ka bedeli kara sportska degmada Burtinle la xisaabtami kara golaha ii sheeg maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha Sayid oo nin dhalinyaro ah oo sportska wax ka garanaya sida Saalax oo kale gudoomiye ku-xigeenka marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Cabdullaahi waa u qalmaa waana geeyaa degmadana waxa maamuli kara waa dhal sportis weeye aad baan idin salaamayaa waa Axmed Cunka weeye Cunka official ku soo dhawaada subscribe like xaqiina weeye sharta